sirdoonku isma sheego. dad badan oo ka mid ah saaxiibada ku xiran barta Marcadda Show kuna sugan Somaliland ayaa marar badan isoo weydiiyay macluumaad ku saabsan hay'adda sirdoonka ee Somaliland. marka aad eegto macluumaad dhanka sirdooneed iyo hay'ad la xiriira way adagtahay inaad hesho. haddana marka aanan macluumaad badan laga qorin way si adkaanaysa inaad hesho macluumaadka ku saabsan hay'adaha sirdoonka. sidaas daraadeed ayaa haddana hay'adaha sirdoonka ee caalamka marka laga qoro sheekooyin aan idinla wadaagi jiray inta badan. mar walba oo aad ka hadasho macluumaad hay'ad sirdoon ku saabsan waxaa loo fasiran karaa wanaag waxaana loo fasiran karaa xumaan. waxaan jeclaystay markaan inaan idinla wadaago macluumaad kooban oo ku saabsan awoodda iyo qaab dhismeedka hay'adda sirdoon ee Somaliland. sidaas daraadeed micnaheedu ma ahan inaan idin iftiiminayo howlgalle hay'addu ay fulisay, laakiin waxaan idinla wadaagi doonaa hay'addaasi waxa loo aasaasay, waxa ay qabanayso. sidoo kale inaad hesho macluumaadii howlgalle hay'adda ay fulisay ma aan kuwa banaanka iska yaala. inta badan hay'ad kasta waxay ku xiran tahay sida macluumaadkeeda loo qoro oo banaanka loo keeno. sidaas daraadeed ayaan uga cudur daaranayaa aniga oo og in ka badan sanad inay dad i weydiinayeen macluumaad ku saabsan hay'adda sirdoon ee Somaliland. aan markaan eegno hay'adda sirdoonka ee Somaliland haddii aanan laga bedelin waxaan u malaynayaa in magaceedu uu yahay National Intelligence Agency oo ah NIA. waxaana loo sameeyay xeerar iyo sidoo kale hanaan ay ku shaqeysaa hay'addaasi. haddaba maxay tahay ujeedooyinka hay'adda sirdoon ee Somaliland loo aasaasay? hay-ad walba oo ka tirsan dunidan waxaa loo aasaasaa ujeedooyin, waxaana ay leedahay xeerar iyo qaanuun hay'addaasi ay ku dhaqantay iyo hoggaan sare. ujeedada koowaad ee loo aasaasay hay'adda sirdoonka ee Somaliland ayaa waxa ay tahay 1. raadinta, xuuraaminta xogta iyo wararka. 2. kasaadaalinta iyo dabagalka ama wax loo yaqaan monitoring wax kasta oo waxtar u leh sugidda iyo xasiloonida amniga qaranka. 3. ka hortagga shirqoolada af iyo adinba oo kaga imaan karaya cadowga gudaha iyo dibadda oo loola jeedo in lagu waxyeeleeyo laguna weeqo haybadda, sumcadda iyo horumarka qaranka weji kasta ama meel kasta oo ay ku abaaran yihiin, kuwaasi oo marka war la helay kadib sid aqoon iyo digtoonaan cuskan loo maareyn karo loona furdaamin karo ama looga hortagi karo inta aanay imaan haddii ay markaa ciqaab mudan tahayna la marsiiyo. 4. kasoo warbixinta meel kasta oo guda iyo dibadba iyo cid kasta oo ay u aragto inay ku lug leedahay ama ay wado dibindaabi qarandumisnimo, curyaamin iyo wax kasta oo waxyeello ku ah habsami u socodka howlaha qaranka, iyaga oo markaasi diyaarinaya habkii ama tallaabadii ku habbooneyd ee wax lagaga qaban karo arrimahaas. arrinta kale waa ka tarjumidda warbixinta iyo u kurgalidda guuxa iyo sidoo kale dareenada shacbiga iyo meel kasta oo ay tabasho ay ka jirto, iyada oo sida ugu habboon warbixin buuxda uga siinaya madaxweynaha arrimahaasi si uu ugu go'aamiyo xalna uu uga soo saaro. waxaan markaan eegaynaa qaybta labaad oo ah qodobka 6 ee xeerka sirdoonka qaranka Somaliland, kaasi oo qeexaya awoodda, xilka iyo waajibaadka hay'adda. hay-addu waxay awood u leedahay inay ka howlgasho dhulka, badda iyo cirka Jamhuuriyadda Somaliland ee ku guda jiro xuduudihiisa caalamiga. waxaa kaloo ay ka shaqayn kartaa meel kasta oo ka baxsan xuduudaha dalka iyada oo la eegayo danta qaranka marka loo baahdo. hay-addu waxay leedahay waajibaadkani ay ka mid tahay ururinta, xuuraaminta, lafaguridda iyo sidoo kale hufidda xogta ay soo hesho oo ah intelligence service. arrinta kale waxay tahay dabagalka oo afka qalaad lagu yiraahdo monitoring iyo la socodka xaaladaha amniga guud ee qaranka iyo xasiloonida dalka iyo dibaddaba. midda 3 ka warbixinta qataraha jira ama kuwa ku soo fool leh amniga gudaha iyo dibadda. 4 saadaalinta iyo ka warbixinta meel kasta oo ay ka imaan karto qatar iyo waxyeello qaranka uga imaan karto, ka hortagidda iyo gacan ku qabashada falal kasta iyo xadgudub kasta oo ah dambiyo, shirqoollo iyo sidoo kale hadimooyin lagu waxyeeleyn kara qaranka. 5 dabagalka iyo sidoo kale raadinta xog kasta oo la xiriirta dambiyada abaabulan iyo kuwa argagixisada. 6 taageerada iyo gacansiinta laamaha dawladda ee qaabilsan amniga iyo dhammaan meel kasta oo kale oo ay waxtar ay ka geysan karto. 7 la socodka iyo dhaqdhaqaaqa hay'adaha shisheeye. 8 tirakoobka iyo xog haynta diblomaasiyiinta oo ah diplomatic mission waxa afka qalaad lagu yiraahdo. 9 tirakoobka ajaanibta wadanka ku sugan. 10 ka hortagga dacaayadaha waxa afka qalaad lagu yiraahdo counter propaganda lidkana ku ah haybadda, sumcadda iyo sharafta qarannimada ee Somaliland. 11 la socodka qalabyada warbaahinta, qoraalada iyo meel kasta oo ay ku wajahan yihiin iyo sidoo kale in la hubiyo ujeedooyinka ay xambaarsan yihiin iyo wax kasta oo ku duugan
waxaasoo afka qalaad lagu yiraahdo publication press and propaganda. waxaan filayaa inaad ogaateen macluumaadyo kooban oo ku saabsan hay-adda sirdoonka ee Somaliland. dhammaan qodobadaanin waxay ku qoran yihiin xeerka sirdoonka qaranka ee Somaliland. ma doonayo inaan sii dhexgala arrimo kale oo dhowr ah oo ku saabsan hay-adda sirdoonka ee Somaliland oo ay ka mid tahay qaab dhismeedka, mas'uuliyiinta xilalka haya iyo kuwa kaleba. waxaan filayaa inaad markan ku qanacdeen macluumaadka kooban ee ku saabsan awoodda hay-adda sirdoonka Somaliland. aan halkaa kaga gudub